soomaalidii hore qarnigiisii 17aad dabayaaqadiisii iyo horaantii qarnigiisii 18aad waxaa jiray oon dalka soo gelin gumaysigu qabsan oon dalka yaga gumaysigu fara ku dhigin oo soo waxyaabo badan oo dhaqan xumaa iyo siyaasadan maanta la isku haysto iimaan la'aantan marqaati beenta la furayo dadkan aan wax isu quurin waxay nagu bilaabatay xilligaas wixii ka dambeeyay markii gumaysigu dalka yimid waxaa jiray nin la yiraahdo Cabdilla Faarax Cadow Cabdilla Goore oo suugaanyahan ahaa saddexda nin uu ku noqdo 14aad oo la yiraahdo hebel waa 14aad waa inuu ku dhufo og yahay dhihi og yahay dhiibi og yahay saddexda ninkii kulansada waxa la yiraahdaa 14aad beel buu xukumay oo dhaqan dawladnimo beelaha ka jiray beel baa la isu xukumay waxaana lagu diriri jiray cashinta iyo ceesha inta badan waxyaabaha dagaalku ka dhaco waa cashinta iyo ceelka marka jufo hoosaadkiisii asaga sii xigtay baa xilkii ku qabsatay oo ogaaday in xilka ay ku haysato markaasuu yiri maalinta talaadada waxaan qalaynaa geel baan qalayaa ninkii hal naaskeed gaara shirka ha yimaado oo beeshaas ah beesha guuda hal naaskeed wuxuu loo dhahayaa hal naaskeed gaara ninka hal aana kalisi karaa wuxuu ahaa nin lagu halayn karo dhaqanka iyo qoyska iyo dagaalka iyo dacwada iyo dooda iyo nabadaba maantana mid hal iska daaya hal cuni kara aan marqaati gelin oo la leeyahay Liibiya ku xiran yahay tarhiib buu u dhintay yaban baa badda ku cuntay waa tarhiibay waa isqarxiyay waa kaas balaayadaas oo dhan dhalinyaradii iyo 20 jiradii iyo dadkii wax ahaa weey waagaasna hal naaskeed nin gaaray reer dhan baa lagu halaynayay beel wuxuu nimayo waxaan ahay baan tilmaamanayaa aniga waxaan beesho ku xukumo baan sheeganayaa marka wixaas aan ahay ninkii wax dheerow inta timaadid cid xakun adigu waa dimuqraadiyo wuxuu rabaa hadii lala yimaado wixiisa wax dheer inuu xilka dhameeyo oo baneeyo xilka ka tago wuxuu yiri hadii geel la soo tubo waayo xoolaha Soomaaliyeed waxa ugu fiican geela hadii geel la soo tubo 10 baan lahaan jiray 10 hadii la waayana 7 baan lahaan jiray mid waa habeenka talawaad tubti aan u bixin jiray midna waa haday toganto Cabdilla u tagoydii midna waa ku soo taagan kutumaati celinti midna waa inta biyaasiin tabad igala fududahay midna waa ku taag daran tabantaabadiisii midna waa kobtalis oo dadku soo tamadiyaan midina waa idin talaala iyo tii aan lahaan jiray buu 7 halaad waa kuwaas waa maxaa kamida waa waxa laga rabo ninka hogaamiyaha noqonaya 7 inuu kulansado hadduu waayo 5 haysto hadduu waayo 4 haysto hadduu waayo 50-50 haysto waxa waaye 7daas waa sifatu president waaye madaxweynaha ninka noqonaya laga rabaa Soomaalidii hore aan ka soo minguurin oo sidaas bay ahayd waa inuu yahay nin decision maker oo go'aan leh hadii mid waa habeenka talawaad tubti aan u bixi jiray waa talawaad tub u baxshay oo dadkii iskama daba wareegino talawaaga aan maanta ku jirno kala markay noqoto nin tub u bixiyo oo leader in la helo way midna waa ku soo taagan ku tumaati cilintii nin wadanka jecel oo ka difaaca Kenya badda inay sanaga qaadan iyo xuduudda iyo wax dhacayo kale waa in la helo way midna waa haday toganto Cabdilla u tagaydo kolka laba wasiir isqabsadaan oo waa maxay waa jufe heblaayo beesha kamida laba wasiir weeye markay isqabsadaan in la kala goyn karo nin go'aan ka gaari karo cadaalad ku garnaqi kara mid waa haday toganto Cabdilla u tagoyday midna waa in tabiyaasiin tabad igala fududahay oo maxay tahay inuu yahay ninku mutacallin wax yaqaan oo waliba tacliinta oo yaqaan diinta islaamka ay saldhig u tahay allahu aan afaku gudicin midna waa ku taag daran tabantaabadiisii sidii Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu oo u kormeeri jiray dadka people-ka oo baahan oo liita oo hamiinkiisa qaraha u dhigaysan jiray in lagu socdo weey laakiin waxaanu aragnay in alxamdu wa nastaciinu mid ka bilaaba sheekada oo asagu markuu casheeyo ilmihiisu waxay ka soo harabanaan ku daadinay oo aan deris kormeerin wadaadada maanta waa kuwaas oo Soomaaliyeed iyo wadaadadii horena saasi ahaayeen in la kormeero oo loo tago oo dadku naxariistii iyo laga rabaa midna waa koob talis oo dadku soo tamadiyaan oo maxay tahay waa gacal iyo cadowga nin deeqsi ah oo gacan furan oo wax laga cabo oo wax dhiiba inuu yahay waayo ninku nin dhiibi oo kaas midna waa idin talaala iyo tii aan lahaan jiray laga wada tashaataas waa tii suugaanta iyo codkarnimada iyo hogaaminta oo ku lahaa ninkaas wuxuu ahaa ninka inta gabayda oo la maqlay ama aanu aragnay
sida aan isku raacay oo abwaaniin badan oo Xuseen oo Faarax iyo Cabdullaahi Macalin Doodaan iyo ninka la yiraahdo Maxamed Warsame Haraawi iyo rag badan Ibrahim Garle iyo Cali Diiriye Cigaal iyo rag badan markii wax aan is weydiinay oo gabaygaas oo waxaas aan sheegnay waxa la yiri waa ninka inta qof isifeeyay asoo wuxuu yahay sheega jooy nin la yiraahdo shaqe oo dhulkaas nugaalkaas ku noolaa wali meesha hadda soo loo yaqaano laas caano soonaheeda ayaa wuxuu soo diray ninkan u soo diray saddex nin oo farda wadato oo yiri xujay iska dhigo Cabdullaahi Faarax Caddo uu tago horta ninku waa nin caynkeeya bal isoo ogaada ninkaas meelahan warshuba la yiraahdo oo milix laga qodo iyo dhulkan oo beeraha bari ah iyo qansaxaan soko ceel cad iyo ximan dhexdooda ayuu ninkan kalena yaala reerkiisu waa u yimaadeen awaala afraxiyaal iyo Cabdulla Guur oo wada socdo laba nin oo ilma adeer ah oo awaalaha ruuxsuna gabiyahay laakiin uu qariyay ninka la yiraahdo Cabdulla maadaama uu hogaamiyaha cid guud yahay awaalana ku jufayay awaala waa la qariyay ayay inta u yimaadeen dhahan waxaan nahay niman xujeeyo halka xadka kadib xamar baan u soconaa inka waxaan rabnaa reerka ku hoyamaynaa noo tilmaantaan Cabdullaahi Faarax Caddo Cabdulla Guur ninkaana idan geeyay gurigiisa ninkii uu ku daro wuxuu yiri saddex neef ha loo qalo waxaa arkaysaa dadkii horeysay wax cunayeen iyo in loo suurayay sharaftooda saddex neef ha loo qalo 36 xibnoodna ha loo geey waayo neef walba waa 12 xibnood laba sibraar oo caanaana ha loo geeyo fardahana ha loo subko oo muxuu ahaayay ha loo waraabsho Soomaalida maanta waxaa ku badan dameerka ma dameerka subki oo waraabin farda lama arkay fardii waa meesha waa ka baxeen gamaankii fardood oo dameer ganac ka hooseeya waxaa yiri ninka la yiraahdo kulan xasan jirno bartii maraysaa marka gurigii baa la geeyay salaadii uu Cabdillo shalmadan oo dharkiisii wato oo xagga ay eeraan Maryam la igu sheegay in laga keeno dhexdan diilitin madow kule hoosna daliigtin madow kule gacmahana qamiis amal meesha ugu dambaysa daliigtima kule sida bijaamada camana saa u xirmo suun dhexda la isaga xirale ayaa la qaadan jiray aliyaa waaga dhinaca eeraan oo shiicadan la ahayn muxuu ahayo haandi maydka gacanta wax lagu sameeyo dadka ugu badana adduunka sida roogaga iyo dadka sameeyo way wadada farsamo badan Faristan la lahayn xariir oo la aadi jiray baa la yiraahdaa ayuu inta yimid buu yiri assalaamu calaykum nimankii wa calaykum assalaam xalay ka warrama sooriyadiinni iyo sidaa ahaydeen waa ladana ma sha Allah labada sibraar oo caanaha socda nugaal waa idan geysaa erga Ilaahay ma adna ahayn oo ka yimid xaramkii shaqad ka timaadeen ma marugu ma idin furan yahay waxaan idin dhiibay maskaxda ma qaadi kartaan waxaad arkaysaa maanta ma maruux baa jeebka lagu wada wataa laakiin maalintaas qofka Soomaaliga ah fariinta loo dhiibo sida taa ugu dhagay waa caafimaad qabay layrtu waa fiicneed deegaanku waa fiicnaa dhulku baraag badan ma lahayn bariisku nagu yaraa baa la hal cuni jiray dadku waa nabad qabeen ala kulli xal beentuna waa yarayd oo wixii la isu dhiibay waa la qaadi jiray wuxuu yiri ma muriga ma idin furan yahay ha baa la yiri uu bilaabay wayeeladan dirhayo waxa dawaaftaanba maritaanka doolood hadaa diini aragtaanba durdurada nugaaleed hadaa duhurki gaartaanba dabci malaha ee shaqo haduu camal la duufayo dadka midan aqoon baa tahay guuraha u dudindhe daarood gabyaagii xigaba waa iska daayeen damal hoos ka nool buu noqday daban qaboobaynde badda dihatay duhurka jimcaal dib ha isku sii daynde biyo badan dabaalniman aqoon uu dahsamayaade ninka guura doonta dib uu uga shalaayaade ninku dawlad buu ahaa dadkuna waa u yaqiinande buladuulo iyo xamar dusow dariifta saaraade laba saan deelayay buu deegta ku hayaade maqli dooxana baa ugu xiran meesha daqaydaade mara dugul madow buu sitay dhugi ma duubnaynde foolxumo kitaabka duray diifu kuma oolde hadaa diido oo dooratana la isku kiindaade waa is sheegaya waxa la yaabo ah maqli dooxana baa ugu xiran meesha daqayda dadka da'da yar oo maanta inay si garan baa laga yaabaa maqligaas maqligu waa toorey ama waa golxob bahasha dhexda lagu xirto oo wax lagu dilo waay laba saan cadeeliyay waa laba waran oo laba saan cadeeliyay buladuulo iyo xamarduso waa faras ku fiican tusida geedaha hoostooda iyo mid ku fiican hawada dulmada oo ka boodida ku fiican waay maanta farda ma xanaanayna dameeraan xanaanayna laba saan cadeeliyay deegto kuma hayno aaka farta ku jira dhibaata dhacday
marka ninkaas wuxuu ahaa calaa kulli xaal nin waa ninkii yidhi waxaa la cabdilla raganimo badanida oo nin waa markaasuu wuxuu yidhi afagaal iyo urur soo baxay baan uur habreed galay 14aad baan dhashiye dirir isniinaad hooyadayna aar gudahayay aragtay fooshii soo markuu dhalanaya libax soo baleeyaa la yiraahdaa ee sida in rag igu inaan muur la ahay soo waxa ahaa nin istifeeyo oo magaciisa waxaan uga gol lahaa xukunka uu hayay xukun beeleed buu ahay xukun dawladeed ma hayn wuxuuna yidhi waxa aan anigu ahay wixii idheerow la wareega xilka in Soomaalida xilligaasna waa xilligii Barbary ay weeraraysay Faransiis oo iskoolada iyo aqoonta iyo la burinayo guryaha daaqadaha laga gelayo Barbary adduunka baabi'isay waxa lagu dirinayna waran iyo falaar bay ahaayeen dadka dhamo hantaris buu ahaa ugaarsataa oo socdo oo falaaraha iyo waxaas la isla dhacay Soomaalina sabay ahayd maanta waxa aan taaganahay iyo maanta waxay ahaydna waa wax isdheer intaasaan uga gudbayaa Cabdille arintii aan ka soo qaatay oo qarnigii 17aad dabayaaqadiisii ilaa 18aad horaantiisii la yiraahdo waa noolaa waayo ninka hadii laga joogo 6 fac marka laga joogo meelahaas ku ekaanaysa